عقاشة salaadiinta iyo qaybaha kala duwan ee ku dhaqan magaal ganacsiyeedka degmadaasi Wajaale oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga Somali News TV ayaa si weyn u soo dhaweeyay wadada weyn ee isku xidhi doonta dekada Berbera iyo degmadaasi Wajaale oo si wada jira u dhagax dhigan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cagjar wadadani ayaa noqonaysa mid halbowla isla markaasina fududeyn doonta isku socodka ganacsiga iyo bulshada kala duwan ee ku kala dhaqan Soomaaliland Ethiopia maadaama ay si rasmi u isticmaali doonaan shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan dalkaynu jaarkana Ethiopia salaadiintan iyo cuqaashan ayaa sidoo kale waxay xukuumadda Soomaaliland u garwadeenka ka yahay Mudane Muuse Biixi Cabdi ay ku hambaliyeen intii uu xilka ay wax qabadka kala duwan uu ka sameeyay guud ahaan dalka salaadiintan oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladoodii waxaan ku soo dhaweynaa mashruuca DBWOL ee ka soo bilaabmaya Berbera ilaa Wajaale haddana naca shacbiga saytugu Wajaale iyo odayaashiisa iyo dhalinyaradiisa iyo dumarkiga iyo rag iyo dumarba waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa mashruucaasi ayaan soo dhaweynaynaa hambaliyaan leenahay kana xoog nafta waabaan leeyahay Soomaaliland waxay u baahan tahay horumar Soomaaliland waxay u baahan tahay horumarkeeda cid ka xunay ha dhacdo ha dhimato horumarkeeda cid ogolina ha noolaato ha soo dhaweynaa waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan baan ku soo dhaweynaa waxaan leenahay yacni isku soo dhawaasho fiican wax wada qabsi fiican iskaashi fiican ayaa anaga iyo naga dhaxeeya ummadda horumarka jecel oo dhanba anagu nabadgelyo ku noolahay nabadgelyada wixii ku dhaqan oo dhanba waan soo dhaweynaa saaxiibaanu nahay nabadgelyada wixii ka xunna waa la culbaanu waan diidana wadada isku xidha Soomaaliland iyo Ethiopia oo khaasatan Wajaale ahaan aad iyo aad loo saameynaysa maadaama nahay halkii labaad ee ay alaabta ku degi doonto maadaama nahay dadka ugu badan ee faa'iidada ka helay waxaan leenahay hambaliyo madaxweynaha qaranka oo ku guuleystay ilaahayna waqtigiisa ka dhigay inay hawshaas qabsoonto waxaan leenahay hambaliyo haddaan nahay dadweynaha reer Wajaale waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa mashaariicaha kala duwan ee dawladda uu hoggaanka ka yahay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siday hawluhu socdaan waxaan raali ka nahay ballanqaadyadii xisbiga kulmiye waxaan raali ka nahay wax kastoo horumar dalkan u keenaya sidaa darteed haddaan nahay dadweynaha reer Wajaale annagoo ku hadlaynaa afka dadweynaha reer Wajaale afka guddiyada kala duwan ee degmada Wajaale waxaan leenahay awguuliyo ilaahay barakeeyo hawsha halkaa ka sii wada barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen annaguna wixii hawsha dhinaca naga toosan waan qaban doonaa isku xidhaya ilaa Berbera ilaa Wajaale aad baan soo dhaweynaynaa waana taageersanahay sida kale shirkiga kulmiye aad baan u hambalyeynaa waana taageersanahay talada wanaagsan iyo go'aanka ka soo baxay aad baan ugu hambalyeynaa waxa kale oo jira kulay Ethiopia kilka sharaada iyo Ethiopia waxa leeyahay ilaaqaad ma leeyahay xiriir bay naga dhaxeeya ganacsi wax kasta ay naga dhaxeeya labada meelood waa la degan yahay dadka Soomaaliland iyo kilka Ethiopia intaba waa deganaay insha Allah kariim horumar iyo barwaaqo iyaan ilaahay ka rajaynaa waxaan leenahay waxaan taageerinaa nabadgelyada horta nabadgelyada ugu wanaagsan hadii nabad la waayo cibaada ma jirto qayb iimaanka ka maqanaya bilaadna hadii la waayo amni alxamdulillaah rabbil caalamiin arrahmaan arrahiim ilaahu tabiiga halka waxaan hambaliyay bogaadin uga diray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi hawlaha ballaaran ee qaranka u hayo ay ka mid yihiin shirkii ballaarnaa ee ku galay berigii dhaweyd Addis Ababa ay ka mid yihiin kuwa la galay wasiirka Ingiriiska ahaa ay ka mid yihiin hay'adaha faraha badan ee wadamada caalamka ee faraha badan ee ka soo qayb gala hadii la kulma hadii shir u yimaada iyo meesha wax marinayo aad iyo aad baan ugu taageersanahay hawsha wadada iyo mashruuca dawladda ay kala saxdaan imaaraadka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan qabaa inay wax badan oo faa'iido leh magaalada uga soo kordhayaan inta loo sameeyay faa'iidada ugu badan ka qaadanaysan waa ganacsatada degmada Wajaale haddaan nahay ganacsatada degmada Wajaale aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa hawl noo qabtay madaxweynaha iyagu arrinkan aad iyo aad baan u taageersanay waxaan jecelahay in wadadaasi ay magaalada dhex marto si wanaagsan oo soo dhaweynaa
ورالي كجسو وحنا نجعلها وحي فإذا أنا حدثنا أنا أو مريض أنا علينا وما هذا إن ست وحن دون سوى أحسن إن لو سودويو هو سودويو خمسة ناي خضر عبد الله تلفزيون كعالمي سومالي نيوز تي في دقم قناعسيات كواتش عليه